xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay arinta ku aadan sargaal ka tirsan ONLF oo la sheegay dawladda Soomaaliya inay u gacan gelisay dawladda Itoobiya. Dawladda Soomaaliya ayaa ku kala qaybsantay xariga Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ah saraakiisha ONLF oo la aaminsan yahay in loo gacan geliyay dawladda Itoobiya. Xildhibaan Maxamuud Abukaate oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay sharciyada iyo saxnimada in sargaalkaasi ka tirsan ONLF loo gacan geliyo dawladda Itoobiya. runtii arinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo bariyahan doodiisa isla dhexmarayeen bulshada qaybadeeda kala duwan arintaas runtii waxay kamid tahay arimaha musiibada oo dadkii shacabka ahaa iyo madaxda wakiilka ka ah bulshada runtii aad ula yaabeen wax oo maartay waxay ku noqotay shock runtii dadka aad ula yaabeen oo maartay aan sinaba loo qaadan karin muwaadin Soomaaliyeed oo dhulkiisa joogo in loo gudbiyo cadow la og yahay wuxuu kala kulmayo waxay arintaas dhaawac ku tahay jiritaanka iyo sumcadda Soomaalinimada waxay dhaawac ku tahay dastuurka noo yaalay kumeel gaarka qodobkiisa 36 faqradiisa 1 iyo 2 sidoo kale maartay waxay dhaawac ku tahay xuquuqda aadanaha sidoo kale waxay dhaawac ku tahay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada maartay qiimaha uu dhaxlaha muwaadinka Soomaaliyeed dawladnimada lagu sheegay sideedoo dhan waxay tahay ilaalinta shacabka hantidooda iyo jeetaankooda iyo dalkooda inay ilaaliso. Xildhibaan Daahir Jeesow oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hordhigay su'aal ku aadaneed dawladdu xaq ma u leedahay iyadoo aayaheeda siyaasadeed iyo amni fiirinaysa in Qalbi Dhagax ay u dhiibto dawladda Itoobiya amba sargaal ONLF ka tirsan ay gudbiso waxa uu yiri shaqsiga ONLF ka tirsan ma Soomaaliya ONLF ku yahay la dagaalamay mise Itoobiya la dagaalamay Itoobiya hadii la dagaalamay Itoobiya ayaa xaq u leh inay muxuu raasato oo ay qabsato oo ay dacweysato runtan ka hadlay anaga ONLF ma nihin Soomaaliya ONLF ma Soomaaliya dal burburi oo aan rabno siyaasadiisa inuu soo kabto waay ina amnigayna aan gacanta ku qabano oo aan laakiin interest oo ONLF dalkeena burburinayna anaga sargaalkani la dhiibay ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ONLF ka tirsan isagu ma yahay shakhsi loo tiri karo sargaal Soomaaliyeed mana yahay mubaadin Soomaali ah deegaanka isagu uu ka soo jeedana dawladda Soomaaliya mu aqoonsan tahay in dul Soomaaliyeed uu yahay waxa ka jawaabaya mar kale xildhibaan Maxamuud Abukaate dadkaas Soomaali galbeed waxaan u aqoonsanahay qayb kamid ah Soomaaliya inay tahay sida maartay dastuurkeena ku qoran meel lagu bixiyay iyo anaga sharciyan aan ku bixinay deegaankaas anaga ma jirto sidoo kale heshiis haday wada galaan laba dawladood sida sharciga wuxuu yahay in baarlamaanka la horkeeno arintaas ayadoona baarlamaanka la horkeenin lama fulin karo marka aad aan uga xunnahay hadduu xataa heshiis uu jiro sharci oo labadaas ay maartay ku wada galeen oo maartay sax dhigi kara ma jirto falanqeeyo siyaasadeed Xasan Xundubey ayaa ka jawaabaya aragtida ah Qalbi Dhagax iyo waxa uu yahay isagoo kala qaadaya aragtida labada ah ee Soomaali iyo Soomaaliya marka anigu waxaan leeyahay qaabkii caadifada Soomaalida oo Soomaali weynta ku dhisnay adduunku ma aqoonsana kaas adduunku wuxuu aqoonsan yahay xuduud Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed inay jiraan waana inta la aqoonsan yahay inta ka baxsan waa Soomaali laakiin dawlado kale ka tirsan yihiin Djibouti waa Soomaali dawlad kale waaye Soomaalida Kenya waa Soomaali laakiin waa dawlad kale Soomaalida Etoobiyana waa Soomaali waa dawlad kale marka waxa adduunka aqoonsan yahay qaabka adduunka aqoonsan yahay hadii la raaco sarkaalkaasi nin ka tirsan waa Etoobiya jabhad Etoobiya ka dhex dagaalanto u dagaalamay wareejinteedu hadii xeerarka adduunka la raaco iyo dhaqanka qaanuunka adduunku yaqaano sidaas saxa dawladnimada Soomaaliya dan u ah dadka Soomaaliyeed dan u ah ninkaasina ma aha hadii la qabto macnaheedu in qoorta laga goonayo ma aha macnaheedu waxa waaye nin siyaasi ah oo laba dawlad isdhaafsadeen oo adduunku la socdo meesha oo mari doono iyo wuxuu noqon doono oo la socdo oo siyaasi ah waaye ma aha jidka laga soo qabto oo markaa qoorta laga goonayo ma marka xaalada Qalbi Dhagax Soomaali ma ahayn Qalbi Dhagax Soomaali waaye Soomaaliya sama ina kala qaadin waaye
soomaali iyo soomaaliya jira soomaaliya waddankaana la yidhaha soomaalina waxaa la yidhaha dadka af soomaaliya ku hadla oo waddamo badanay joogaan sida aad og tahayba carab haddii la yidhaha hadda af carabi dadka ku hadla haddii la fiirsho 30 dowlad jirto af carabi 20 dhowr dowlad jirto af carabi ku hadasha laakiin haddii la yidhaha sacuudi carabiya dhul go-aanaa la yidhaha kuwait iyo sacuudi carabiya waa ilmaadeer qatar iyo sacuudi waa ilmaadeer isku afay ku hadlaan isku reer waaye laakiin waa kala dowlad marka dowladnimada dowladda waxaa la yidhaha soomaali iyo soomaaliya in la isku qaldamaa soomaaliya ma aha qalbi dhagax laakiin waa soomaali etoobiya ka tirsan markii ay soo baxday dhiibitaanka qalbi dhagax waxaa kala qaybsamay labada gole ee xukuumadda baarlamaanka iyo madaxda sare ee dalka taasi oo ku kala aragti duwan siyaasadda dhiibitaanka ah waxaana sidoo kale jiray in hadalhayn aad u ballaaran baraha bulshada maalmahanba ay ka taagan tahay ayadoo dowladda Itoobiya qudheeda wasaaradaheeda warfaafinta iyo kuwa kaleba siyaabo kala duwan ay uga hadleen arrinta qalbi dhagax